munaasabadan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta iyo inta badan ardayda wax ka barta jaamacadda Simad aqoon-yahano ganacsato iyo marti sharaf kale ayaa ujeedkeedu ahayd mid shahaadooyin lagu guddoonsiinayay in ka badan 620 arday oo dhameystay heerka koowaad waxbarasho jaamacadeedka Simad University ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. ardaydan oo ah dafcadii 10aad ee ka qalin jibisay jaamacadda Simad ayaa kuliyadaha ay dhameysteen waxa ay kala ahaayeen barashada cilmiga maamulka bulshada, barashada cilmiga tiknoolajiyada, barashada cilmiga maamulka ganacsiga iyo xisaabaadka. wanaag horta waa jaamacadda Simad ilaa qalin jibiyo aad iyo adag tahay si adag jaamacadda Simad la kala ugu horeeyay ardayda maanta halkan joogtay wala noqdo Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Culuso oo ah ardayga kaalinta koowaad ka galay dhammaan kuliyadaha qalin jibiya ayaan weydiiyay waxa uu ku muteystay darajadaasi. ma dadaal aniga asaliyo kali waa wax ilaahay diiday ama nasiib ay ku noqotay inkastoo dadaal badan aan sameeyay laakiin haddana waa ay dhacday billahi alxamdu waa dadaal iyo ilaahay uu kala galay iyo dhammaan dadka asxaabta aan nahay iyo waalidiinta iyo garabsiiyay qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacadda Simad iyo marti sharaf kale oo munaasabadaasi hadal ka jeediyay ayaa kula dardaarmay ardayda qalin jibisay in dadaalkooda ay sii wadaan. waxaan u faraxsanahay maamulkeeda xaflad loogu soo barabaxay wixii ay abuureen wixii ka soo baxay ay joogjoogka wadaan marka saacadii waa soo koobantahay waxaan jeclahay inaan mustaqbalka labadaba birkadaan waa bangiga waxbarashada iyo bangiga waxbarashada adeeg oo afka ilishiga kaliya waa adeeg oo go'aan ah oo strategic decision ah oo bangiga uu go'aansaday waxaan kulligeed ku yahay inay soo saarnay xaflada weyn oo hadda aan ay u joogno oo هذا أكثر من الصوماليات الجماعية. وأقول جرا أولتي سأسيب المدرسة إن كاتبين أقدر أن تلجمين إذا أوريدي أنتيجا ريبيرين شاليسية أو قاضي. كنت رأسمه يسمعني هذا سيجعله. Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Awdiwa gudoomiyaha jaamacadda Simad ayaa ardayda qalin jibisay kula dardaarmay in ay wax ay barteen ugu faa'iideeyaan shacabka Soomaaliyeed. jidka waxaa soo baxdana ay walaacada waxaana ugu soo keenay marka inaad sayidaasan intii badan hay'adaha shaqada doonta laga yaabaa in dawladdu ku shaqeysan laga yaabaa in tijuuyo kala duwan shaqeysan inaad sayidaasan xoolaha dadka dawladda ku koraysan وأقول لهم يا سمعان تعيش عملت هذه سوق العكس سمس العكس من وقت في عام هذا يا ما كتبت بالي ميديان بقول ماذا سمعان تحب تشغلي ما هو يقولي إيش مركاني عم بقول بعدين بقول كراس ثاني بقول بعدين هذا كذي أنا بقول بس سوق تحب ما هذا بقول شغل أنا بقول بكم وأنا واحد بدل بتعمل دستي بدل مسامينا يعني كواليتي كذا ما سير بقول كذا توصلي مين كذا حكومة مشان أدريك وحنا وطن ودنا وحنا ودنا نروح وحنا فيها نظام هذا تقبله هذه لا هذه qaar kamid ah ardayda qalin jabiye oo uu kamid ahaa Cawil Abuukar Maxamed oo kamid ah howlwadaanada telefishinka Royal Xafiiska Muqdisho ayaa dareenkooda ka waramaya. awasta ogtahay waxbarashada ma sahlano waxaan qaadanaa hadda darajada koowaad ee jaamacadda waxaan dhiman darajadii labaad waxaan dhiman tii ayadana saddexaad oo ugu dambeysay doctora marka insha Allah hal gadeer aan soo galnay wax badan anoo shaqeynaayo oo shaqadii ku jiro oo hawleeyay shaqada wata ayaa jaamacadda iyadana ka diganay oo hawshaas dawlad marka sida dareemi kartaa in shaqa ku jiray oo maalmeedkiisa watay haddana jaamacad diganayo ilaas waa dareemi kartaa oo carruur bilka sugayaan oo ay hawlo kale ku furan yihiin haddana jaamacad waday marka hal gadeer aan soo galay ilaahay waa nagu aad iyo aad ayaa dumaashiin magacaygu waa Cabdullah Xuseen Abdoon waxaan ka mid ahay jaamacadda Simad gaar ahaan ardayda dhameystay kulliyadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada
bulshada runtii maanta dareenkayga lama soo koobi karo waana aad iyo aad waxaan la soo koobi karin inaan maanta arko maalintan aad u weyn ee ahaa maalinta loo ballansanaa ee ahaa maalinta qalinjabinta waxaan ku faraxsanahay in aan digriga koowaad ka qaato jaamacadda simad isla markaasna aan ka diyaariyo xirfadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada waxaan